بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ورarka subaxnimo ee xogta ciyaaraha qodobada idinku soo gudbin doona hadii Allah uu dal raali ka noqdana waxa kamid ah Antoine Griezmann oo sheegay waqtiga uu ku dhawaaqayo kooxda uu wareegayo Kylian Mbappe oo si uu Real Madrid ugu biiro dhowr shuruudood hordhigay kooxdiisa Paris Saint-Germain kooxda Chelsea oo la kulantay macalinka kooxda Derby County Frank Lampard isla markaana doonaysa inay ka dhigto bedelka Marouche Sarri haliyeyga hore ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England Ferdinand oo markaa kula taliyay Chelsea in ay Lampard la saxiixdaan kooxaha Chelsea iyo Turin oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay markaasi Turin la wareegtay mid kamid ah ciyaartoydii kooxda Chelsea qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadii kula socod doontaan wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha oo ay ka mid yihiin kulamadii isreebreebka qaramada oo xalay la dheelay kulamo waaweyn oo guulo markaasi ay gaareen kooxu ayaa idin soo gudbin doona ay soo dhawaada aan ku bilaabay ciyaaryahanka xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa ku dhawaaqay xilliga sida rasmiga ah uu shaacin doono kooxda uu ku biirayo Griezmann oo dhawaan ku dhawaaqay inuu isaga baxayo kooxda Atletico Madrid isla markaana la xiriirinayo kooxo waaweyn oo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa waxa uu ka shanqariyay in uu 2 asbuuc gudahood ku dhawaaqi doono kooxda uu ku biirayo Griezmann ayaa xusay goorta la shaacinayo kooxda xagaagan uu uga wareegayo Atletico Madrid xilli si weyn loola xiriirinayo Barcelona iyo sidoo kale kooxo kale oo Man United ka mid tahay Antoine Griezmann oo su'aal laga weydiiyay mustaqbalkiisa iyo xilliga sida rasmiga ah uu cadeyn doono kooxda uu ku biirayo ayaa yiri muddo 2 asbuuc gudahooda ayuu soo bixi doona go'aanka kama dambaysta ahi waxaan la leeyahay haatan Antoine Griezmann waa uu cadahay kooxda uu ku biiri doono xagaagan oo meel ayuu sii dhigtay wararka qaar ayaa sheegaya in Atletico Madrid lacagta qaaliga ah ay ku doonayso kooxo badan ay uga cararayaan Antoine Griezmann isla markaana ay sugayaan inta markaasi laga gaarayo bisha July ee soo socota markaasoo la aaminsan yahay in hoos u dhac uu sameyn doono dhaqaalaha faraha badan ee Atletico Madrid ay ku doonayso xidigani xulka qaranka Faransiiska ciyaaryahanka Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa waxa si dhow loola xiriirinaya kooxda Barcelona oo la leeyahay xagaagii hore ayuuba heshiis la sii gaaray haatanna waxa mar kale la leeyahay iyada ayaa ugu cadcad in uu ku biiri doono warar soo baxay ayaa sheegaya in ay doonayso Barcelona inay bedel uga dhigto ciyaaryahankani Antoine Griezmann xidiga xulka qaranka Brazil ee Philippe Coutinho oo waqti aan wanaagsaneyn ku qaadanaya garoonka Nou Camp ee kooxda Barcelona ay ku dheesho xidiga xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Paris Saint-Germain Kylian Mbappe oo haatan da'diisu ay tahay 20 sano jir ayaa shuruudo waaweyn hordhigay kooxdiisa Paris Saint-Germain si uu ugu biiro kooxda Real Madrid hadii aysan shuruudaha ka soo bixin Mbappe ayaa ku soo guuleysay koobkii adduunka ee 2018 isagoo 4 gool ka soo dhaliyay tartankaasi sidoo kalena 3 jeer oo xiriir ah ku soo guuleysay horyaalka dalka Faransa ee Ligue 1 wariye ka tirsan majalada Sunday Times ayaa ku waramay in Kylian Mbappe uu doonayo dhowr shuruudood oo inay ka soo baxdo kooxda PSG waxa kamid ah shuruudahaasi oo hordhigay inuu doonayo in la dheelsiyo booska weeraryahanka dhexe ee haatan uu ka dheelo Edison Cavani in laga dhigo midka tuuraya rigoorayaasha kooxda iyo in kooxda Paris Saint-Germain shax ciyaareedkeeda isaga dartiisa loo bedelo oo ay ku ciyaaraan shaxda 4-4-2 wariyahanka howlgala Sunday Times oo si dhow markaa ula socday xogta ciyaaryahanka ayaa waxa uu leeyahay Mbappe waxa uu aaminsan yahay inuu dhaafay Neymar marka ay noqoto muhiimadda ka ahaanshaha PSG wuxuu doonayaa in loo ballan qaado inuu u ciyaaro weeraryahanka dhexe ee kooxda isaga oo ka horeynaya Cavani iyo Neymar waxa kale uu doonayaa in rigoora tuurista oo markii horeba ay isku haysteen ciyaartoyda Neymar iyo Cavani oo dhowr mar dagaal uu ku dhexmaray in isaga uu la wareegaba uu kooxda ka dulqaado waxa leeyahay waa shuruudo adag shuruudahani oo markaa Paris Saint-Germain inay yeeli doonto uma badna laakiin isagu waxa uu uga gol leeyahay in la iska fasaxo oo ku biiro kooxda Real Madrid kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa doonaysa in bedelka macallin Marouche Sarri ay ka dhigto Frank Lampard halyeygii kooxda Chelsea haatanna macallinka waa kooxda Derby County maamulka sare ee kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay wada hadallo la bilaabeen halyeyga kooxda ee Frank Lampard si uu bedel ugu noqdo tababaraha haatan kooxda ka tagaya ee Marouche Sarri ayaa kaliya hal sano ku soo qaatay xilka tababarnimo ee kooxda Blueska balse waxa uu markaasi haatan u muuqdaa mid ka baxaya oo macallin u noqonaya kooxda Juventus
waxaana xilli ciyaareedka uu kooxda joogay macallinku kula guuleystay koobka Yurub Liiga. Milkiilaha kooxda ee Roman Abramovich oo ah shakhsiga sida weyn u qiimeynaya ciyaaryahankan Frank Lampard ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in uu markaa macallin ka dhigayo Lampard. xilka tababarnimo ee Chelsea ayaa kadib bixitaanka Mauricio Sarri lala xiriirinayay tababarayaal dhowr oo ay ka mid yihiin Massimiliano Allegri macallinka ka baxaya kooxda Juventus xilli ciyaareedkan, macallinka kooxda Ajax ee Erik ten Hag iyo macallinka kooxda Newcastle horena Chelsea macallin ugu ahaa Rafael Benitez. Chelsea oo haatan suuqa laba xilli ciyaareed laga ganaaxay ayaa racfaan waxa ay u gudbisatay maxkamadda CAS ee xalinta khilaafaadka isboortiga iyadoo haatan sugaysa in jawaab ay ka hesho maxkamadda. haddii Chelsea laga qaado ganaaxaad ka saaran suuqa, waxa ay suuqa ka doonaysaa dhowr ciyaartooy oo ay markaa doonayso inay ku adkayso kooxda, maadaama haatan uu ka baxay Eden Hazard oo ahaa lafdhabarka kooxda Blueska. halyeygii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Ingiriiska ee Ferdinand ayaa kula taliyay kooxda Blueska in ay macallin u doortaan Frank Lampard oo uu noqon karo Guardiolaha kooxda Chelsea. Rio Ferdinand ayaa sheegay in Frank Lampard uu aad ugu habboon yahay shaqada kooxda Chelsea, waxaana uu markaa la barbar dhigay Pep Guardiola. tababaraha haatan ee kooxda Derby County ahna halyeyga Blues ayaa la hadalhayay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay inuu noqon karo tababaraha kooxda Chelsea. Rio Ferdinand ayaa yiri iska daaya lacagaha faraha badan ee aad qasaarinaysaan ee halyeygiina Frank Lampard u doorta macallinkiina, isaga ayaa wax badan ka bedeli kara kooxda, isla markaana waxa uu idin noqon karaa Guardiolaha kooxda Chelsea. la yaab ayay ugu noqon doontaa haddii ay meel kale wax ka raadiyaan. waxay isku soo dayeen tababarayaal waaweyn, wax ixtiraam darro ah uma muujinayo Allegri, waxyaabo aan la rumaysan karin ayuu ka sameeyay Juventus, laakiin Chelsea waxaa soo maray Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Mauricio Sarri, Jose Mourinho iyo tababarayaal kale. dhammaan waa tababarayaal waxyaabo waaweyn soo qabtay, laakiin midkoodna kuma nagaanin kooxda. sidaa darteed waxay sii wadayaan inay sidaa sameeyaan oo ay lacag badan ku qasaariyaan tababarayaasha. waan jeclaan lahaa Chelsea inaan kula taliyo in mushkiladda ka haysata dhanka tababarayaasha ay ku xalliso halyeygooda Frank Lampard. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku dhawaaqday si rasmi ah in ciyaaryahankeeda difaaca kaga dheela ee Oloina uu markaas si rasmi ah ugu beeray kooxda Turin. kooxda Turin ee dalka Talyaaniga ayuu ciyaaryahankani si amaaha ugu dheelayay xil ciyaareedkii la soo dhaafay. haatan kooxda Chelsea ayaa boggeeda rasmiga ah waxay ku xaqiijisay in heshiis rasmi ah Oloina uu ugu biiray kooxda Turin ee dalka Talyaaniga. kooxda Turin ee dalka Talyaaniga ayaa iyaduna waxa ay markaasi boggeeda rasmiga ee Twitterka ku xaqiijisay in ciyaartooyga Oloina ee dalka Nigeria u dhashay uu si rasmi ah uga mid yahay kooxda Turin oo ay kala wareegeen kooxda Chelsea. Chelsea ayaa ka mid ah kooxaha ciyaartooyda ugu badan ee amaahda uga maqan tahay. 40 ciyaartooy ayaa amaah uga maqan oo kooxo waaweyn qaarkood ay u dheelaan. bal markaana haddii aynu eegno daawadayaal kulamadii xalay la ciyaaray ee qaramada, xulka qaranka Talyaaniga ayaa waxa uu markaa xalay soo dhaweeyay xulka Bosnia, waxaana 2-1 ku guuleystay qaranka Talyaaniga. qaranka Azzurri ayaa guushii labaad oo xiriir ah gaaray. goolka koowaad oo qaranka Bosnia uu dhaliyay weeraryahanka kooxda Roma Edin Dzeko ayaa waxa markaasi Talyaanigu ay ku bedelaan 2 gool. daqiiqadii 49aad ayuu goolka barbaraha u dhaliyay qaranka Talyaaniga ciyaaryahan Inzaghi, iyadoo 86 markii ciyaartu ay maraysayna uu markaa Marco Verratti ciyaaryahanka Paris Saint-Germain goolka guusha u dhaliyay qaranka Talyaaniga. kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee qaramada waxaa markaa ka mid ahaa qaranka Belgiumka oo 3-1 ku dharbaaxay qaranka Scotland. kulankaasi waxaa 2 gool oo ka mid ah Belgiumka u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka uga dheela Manchester United iyo Romelu Lukaku, halka goolka saddexaad uu u dhaliyay Kevin De Bruyne qadka dhexe ee kooxda Manchester City. xulka qaranka ee Tunisia ayaa Croatia 2-1 kaga badiyay, halka Jarmalku 8-1 kaga badiyay xulka qaranka ee Estonia. Faransiiska ayaa 4-1 ku dharbaaxay Andorra, halka xulka qaranka ee Korea oo Ecuador 1-1 kaga gudbay. waagaag daawadayaal wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha halka ayaan kugu soo gabagabeynayaa. daawade fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe noo saar, waadna ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka wararka aan ku soo gudbinay. mahadsanideen.